بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان حلقة دني أفراد دروستي رمضانك. حلقة دني سيد واحد وحنك كسو هذا الحكم كي حكمة دا. حلقة عشر كان نحوكو سابسن يهي مردان صونري وواجب يوكو واجبه. مردان الحكم كيسي واجب tilmaamaha marka laga helo qofka uu ku waajibayo. waxaan leeyahay shartiga koobaad ee waajibitaankiisu al-islaamu way. qofku waa inuu muslim yahay. waxaan dib u noqdo waajibka aan ka hadlayno waa waajibka guud inaad ama fuliso ay tahay hadda ama aad dib ka fuliso. waajibku wax hadda kuu diidaya inaad fuliso ama lagu ogol yahay inaadan fulin, laakiin mar walba dib lagaa rabo wuxuu waajibay markay bishu soo gashay. saa darteed waajibkaa guud weeye waxaan ka hadlayna. shardiga koobaad al-islaamu way. qofku waa inuu muslim yahay. qofkaan muslimka ahayn markaa uu joogana soon la dhihi maayo. hadduu soo islaamana dib ka qadle oo dib baad ka gudi la dhihi maayo. qofkaan markaana la faraynin dibna kala ima aan la dhahaynin waajibka aan ka hadlayna ma aha. way dhici kartaa qofku dad baa shaqaalo waa aan muslim ahayn. ninka muslimka waxaa loo ogol yahay gabaraan muslim ahayn oo ahlu kitaaba inuu guursado. waa xaaskiisiya soon ma dhahaya maya. waayo waajibkii la isfarayee samee la isdhihi lahaa ma aha. haddayba dib ka soo islaanto ma qadaynaysaa maya, qadla laguma laha. saa darteed shardiga koobaad ee islaamku waajibitaanku al-islaamu weeye kow. shardiga labaad alcaqlu qofku garashadiisu inay joogto wey. qof waalan hadduu yahay ama garashadiiba ka tagtay, da' bay uga tagtay, xanuun kaloo ku dhacay bay uga tagtay, dhib soo gaadhay bay uga tagtay. dhibkaas soo gaadhay ama nabar ku dhacay ha noqdo ama sixir la sixiray ha noqdo. qofku qof waalan hadduu yahay waxba kuma waajibo. nabigeena alayh salaam waa ka yidhi rufica alqalamu can halaahatin. saddex waxba looma qoro kuma waajibo. waxaa ka mid ah can ilmajnuuni xataa yacqil. qof waalan ilaa uu caqligii u soo laabto oo uu miyirsado waxba waajib kuma aha. haddii uu dib ka caafimaadoo miyirsado wakhtigii uu waalaa soonkii ahaa laguma leh, qadana laguma leh, fidina laguma laha. shardiga saddexaad albuluuqu qaangaadh weeye. qofku hadduusan qaangaadhin waajib kuma aha. hadduu soomo ay fiican tahay, gaar ahaan hadduu wax kala garanayo la soomiyo ama isaguna soomo ay fiican tahay, ilmahana in la baraa fiican ha ka celinine ku dhiirigeliya. haddiiba ay 7 jir iyo gaadhaan oo xilligii salaada la amrayo ay gaadhaan, xataa maalinta nuskeed hadduu soomo uu qabsadoo la qabsadoo la sii barto wax fiican wey. nabigana alay slam xadiidkaan hadda sheegnay cali bn abi aalib rafica alqalamu can halaahatin waxaa ka mid aha can isabiyi xataa can algulaami xataa yaxtalim. riwaayadka qaarkood can isabiyi xataa yabluq. ilmuhu ilaa uu qaangaadho. hadduu ilmihii qofkii qaangaadho waajib bay ku tahay. hadduu maalinta dhexdeeda qaangaadho qaybta dambe cunnadii iyuu iska dayn. inta ka horraysa waajib kuma aha, laakiin hadduu soomo way fiicantao wax kala garanayo. shardiga afraadii alqudratu inuu awoodo wey. inuu awoodo maxaa looga jeedaa? qof soomi kara waa inuu yahay. hadduunan haddana soomi karin dibna ka awoodin haddana awoodin
soonku waajib kuma aha laakiin beddelkii baa waajib ku ah sidii qofkii waa yeelay in da' la soomi karin iyo qofka xanuunsan ee xanuun joogto oosan haddana soomi karin dibna ka qadayn karin haysto intaasi saddexda shardi ee hore khilaaf kama jiro kan kale ee qudradii awoodda aynu nidhi culimmada qaar baa shartu wujuub ma aha tiraahda maxaa yeelay beddelkiisii baa waajibaya isagii markuu ka cajisay uu kari waayo marka aslul wujuubkii asalkii waajibnimadu waa baaqi halkaasay ka egeen shuruudan saddexda ee soo marnay laba shardi oo ka midihii mar kaley soo noqonayaanoo ansixitaankii baa ku xiran qof aan muslim ahayn hadduu soomo kama ansaxayo qof aan caqli lahayn oo majnuuna hadduu soomana kama ansaxayo laakiin qof aan qaan gaarina wax kala garanaya uu ka ansaxaya qofkaan awoodinee rukhsadda la siiyey hadduu isdhibo wuu ka ansaxayaa ma u bannaan yahay isdhibkaasi waa masale ku xiran dhibka isaga jirkiisa soo gaaraya khatartuu ku yeelanayo intaas waxayna u dhammaaday cashirkii afraad intaan sagamanayna cashirkeena xigee shanaad oo ku saabsan fadaa'isha siyaamka aniga iyo tiimka waxaan kaga tegaynay sidii ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu